صباح wanaagsan maxaa cusub subax la mid ah waxaa cusub in ololaha talaalka jadeecada iyo dabaysha ay bilaabayso wasaaraddeena caafimaadka laga bilaabo 24 November 2019 waa maxay jadeeco iyo cudurka dabaysha jadeecadu waa cudur dilaa ah kaasoo calaamadihiisa ay ka mid yihiin finan qandho indhaha oo guduud noqda sababi karana indho la'aan dhaawac maskaxda gaara iyo dhimasho jadeecadu waa cudur si daran u faafa una gudba si dhaqsiyo ah cudurka dabayshu ma lahan daawo laakiin waxaa looga hortagi karaa talaal oo kali ah sidee buu u dhacayaa ololaha waxa uu ka dhacayaa gobolada bartamaha iyo koonfurta laga bilaabo 24 November 2019 talaalayaashu waxa ay booqan doonaan goob kasta iyo xaafad kasta xarumaha barakacayaasha meelaha ay ku sugan yihiin reer miyiga si ay u siiyaan talaalka dabaysha carruurta ay da'doodu ka bilaabanayso dhalashada ilaa 5 sano iyo talaalka jadeecada carruurta ay da'doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 5 sano waxa kale la socda carruurta 6 bilood ilaa 5 sano jir ah vitamin A carruurta jirta 1 sano ilaa 5 sano iyadana waxa loo raacin doonaa kiniiniga gooriyaan dilaha ah albendazole geeya carruurtaada ka yar 5 sano xarumaha talaalka ee kugu dhow si loo talaalo adeegan waa lacag la'aan ururka caafimaadka